waa tahay daa'ud haatanna waxaa noo xigay barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan maxamed colaad xasan oo nala socodsiiya. kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan kaga hadlayno xiisada xoogan ee ka taagan dalka Ciraaq iyo arrimaha la xiriira jabhadda ISIS ama Daesh loo yaqaano. wadaadka shiicada ugu weyn Muqtada al-Sadri ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ku gacan siiyaan militariga Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda ISIS ee Sunniyiinta ee qabsatay magaalooyin waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq. iyagoo ka jawaabaya dalabkaasi ayaa kumanaan dhalinyarada shiicada ah ay isugu soo urureen jidadka magaalada Baghdad maanta iyagoo isku diiwaangelinaya dagaalka. wadaadkan oo ciidamadiisa Mahdi Aami ay Mareykanka kula dagaalameen Ciraaq muddo sanado ah ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ka hortagaan kooxaha Sunniyiinta. barnaamijka waxaa toddobaadkan marti noogu ah Aadan Sheekh Xasan Azhari oo loo yaqaano Aadan Azhari oo ka faalooda arrimaha Carabta. Aadan kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. aad ayaa u mahadsantahay waa dhowahay. bal marka ugu horeysa arrimahan ka socda dalka Ciraaq waad aragtaa oo jabhadda ISIS iyo dagaalka dawladda ka dhaxeeya iyo saameynta gobolka uu ku leeyahay caalamkii baa ka hadlaya Mareykanka oo kale hadallada uu ka jeedinayo. bal marka ugu horeysa jabhaddan ISIS waxa ay tahay dagaalka ka socda Ciraaq iyo jabhadaasi run ahaantii muddadan dambe ay aad u soo xoogaysatay laakiin markeedii horena way jirtay jabhadda. waxaa la yiraahdaa waa iyagu ama magacoodii iyagu ay jecel yihiin in loogu yeero sida ay jecel yihiin in loogu yeero waa dawladda islaamka iyo Ciraaq iyo Shaam. marka waxay in muddo ah ka dagaalamayeen dalka Syria. marka waxay aaminsan yihiin in la xoreeyo dhammaan dhulka Shaam iyo Ciraaq lagana xoreeyo waxa laale waxaan islaam shaqo ku lahayn kadibna laga dhiso dawlad islaam ah. marka waxaana lagu tiriyaa dadka oo mayal adag ama fikirka al-Qaacida wato walow dadka qaar arrimahaas ka faalooda ay aaminsan yihiin inay ka shisheeyeen xataa al-Qaacidada ay ka fikir fog yihiin. marka jabhadda noocaasi ah waxaa lagu eedeeyaa inay dhibaato fara badan iyo dulmi badan ay ku sameeyaan meelaha ay qabsadaan. hase ahaatee marka loo yimaado arrinta Ciraaq si gaar ah waxaa la dhihi karaa in qabsashada ay qabsadeen meelo fara badan aysan ka dhalanin kaliya ee awood iyaga ay leeyihiin waxyaabaha ku caawiya ay tahay dadka oo sunnada ah oo dulman oo arka ninka Maliki ee muddada ugu dambeysay dalka ka talinayay in uu dhibaato fara badan ay dulmi ku sameeyay in uu dadka sunnada ah uu fogeeyay in mar walba uu ku hayo siyaasadda iyo mid dhaqaaleba si gaar ah loo wiiqayo. marka asagoo markaas ka amar qaadanaya Iiraan marka waxay caatifad iyo naxariis fara badan iyo soo dhaweyn ay ka heleen dadka sunnada ah meesha degan oo ciidan ahaana ugu biiray kooxo kale oo bacsiga xisbiga hore oo Saddam Hussein ninkii la dilay hogaaminayay oo isbiirsaday. marka waxaas oo dhan marka la isku daro dad ayaa waxay leeyihiin arrintu waxa la dhihi karaa waa kacdoon cusub oo Ciraaq oo dhan ka dhashay oo kacdoonkaasi ay ka faa'iideysanayso jabhadaasi laakiin midaynayo dadka dulman oo dhan haday yihiin kooxaha sunnada xisbiyada kala duwan si ay isaga baaciyaan markaas dhibaatada uu ku hayo ninka Maliki iyo kooxdiisii shiicada ah. laakiin markaad fiiriso qaabka ay u dagaalamayaan iyo meelaha ay telefishinada warbaahinta soo gudbinayaan muuqaaladooda waxay muujinayaan sida calankoodii madooba oo halka ay surayaan iyo inay muujinayaan iyaga kaligood yihiin cidda weerarkan ku jirta ee ciidamada dawladda Ciraaq la dagaalamaysa. arrinta marka dhaawac intee leeg bay u geysan kartaa Sunniyiinta kale ee kooxdan la socda ee doonaya inay Maliki meesha ka tuuraan oo xuquuqdooda raadinaya. run ahaantii haddii oo labada dhinac baan u eegno macnaha dadka sunnada ah su'aashaadii sax dhibaato badan ay arrintaas way ku keeni kartaa mustaqbalka nimankan kooxaha ama jabhadda noocaas ee markaas fikirka mayalka adag aaminsan ama tatarufka aaminsan waxaa inta badan lagu yaqaanaa in ay marka hore naxariis dadka ay ka raadiyaan marka ay dhulka qabsadaan fikirkooda kaliya meesha ay ku xukumaan. waxaana tusaale kugu filan kooxaha al-Shabaab oo Soomaaliya xataa ka dagaalamo inay marka hore shacabka beelaha yaryar ay yiraahdeen xaqiin ayaan idin soo celinayna marka ay qabsadaanna kadib awoodooda kaliya ay meesha inay ka shaqeyso oo fikirkooda kaliya uu socdo waxay rabaan ay sameeyaan taas waa macruuf oo lagu yaqaanaa marna marka cid kama dhaadhicin karaan koox jabhadda Daesh ee meesha haysata hadda ama qabsatay in ay iyagu cadaalad u sameyn doonaan dadka meesha degan. walow marka bulshada la wareysanayo oo aad u kurgashid waxa dareemaysa dad badan oo ku dhahayo dulmigii aan islahayn way sameyn doonaan way yareeyeen nala kuma qasbin in xijaab xirano gabdhaha oo kale walow dadku intooda badan ay xijaab xirtaan waxyaabahaas oo dhan waa dareemaysa laakiin haddana waxaa hubaal ah mar walba jabhadaasi inay fikirkeeda wadato oo fikirkeedana uu yahay mid ballaaran oo caalamka oo dhan ay aaminsan yihiin inay qabsadaan ay xoreeyaan mantiqada ama gobolka oo dhan ay hadda ku tilmaameen Shaam iyo Ciraaq sida magacooda uu cadeynayo.
marka saasi darteed waxaan aaminsanahay kooxaha sunnada ah dhibaato fara badan ayaa kusoo gaari doonta ugu dambeyntii. laakiin siyaasadda marka laga hadlayo run ahaantii waxaa jira wax la yidhahdo ama taktiik ama marxaladda markaas la taagan yahay ruuxa inuu xooga saaro maxaad faa'iidi kartaa. taas ayaa waxay keenaysaa in nin ruuxda ama koox walba kooxda kale inay ku dangaarto si ay markaas ujeedkeeda u gaarto. marka kooxda sunnada dhe ama xisbiyada kala duwan ee markaas maaliki kasoo horjeedo oo nimankan hadda isbahaysiga kula jiro waxaa hadda ay marxaladan ay xooga saarayaan sidii ay u dareensiin lahaayeen inaysan raalli ka ahayn waxa ka socda Baghdad, inay u sheegaan ninka maaliki wax uu wado inuusan ku guuleysan karin haddii uusan dadkaan la fariisanin. waxaan u malaynaa dambaaladaas ay xooga saarayaan hadda inay u faraan. dambaalkaasna already wuxuu gaaray Baghdad uu gaaray kooxaha maaliki la tacaatufsan uu gaaray dunida caalamka oo dhan uu gaaray. waa tan kaliftay xataa Mareykanka oo laga hadlayay haddii aan qodobkaas dhamaystiro Mareykanka oo laga hadlayay ciidamadiisii xataa diyaarado fara badan inuu isugu geeyay hadda khaliidka si uu tilaabo uga qaado dagaal walba oo xaggaas kasoo cusbanaado oo dib u keeni kara Ciraaq. ayaa hadda Mareykanku waxay dib aad ka dareemaysaa hadallada kasoo yaraya madaxdooda ama khudbadaha ay jeedinayaan sida madaxweynaha Mareykanka Obama ama hadduu ahaan lahaa wasiirka arrimaha dibadda inay leeyihiin waxaan u baahannahay in dowlad qaran la dhiso, in dadkoo dhan ay wada fariistaan, in xataa maaliki oo si toos aysan magacooda u sheegin xataa ay tahay in wax laga hadli karo. marka arrintaasoo dhan waxaa lagu fasiri karaa in ay rabaan in ay markaasi ay joojiyaan ama ay u dareensiyaan dadka sunnada ah in oo Mareykanku uusan la jirin shiicada ama sunnada uusan kasoo horjeedin ay tahay dadka laga soo horjeedo kooxaha al-qaacida ee fikirkaasi wato. waa gartay. markaad fiiriso shiicada laftirkeeda oo kale waxaa la leeyahay salka waxay ku hayaan dalka Iran oo shiicada wadanka ugu badan ee qaliijka ku yaala uu yahay. marka waxaa la leeyahay doorka Iran laftirkeeda arrinta ayuu kasii darayaa oo waxa kaloo maqlaynaa in wadaadka ugu weyn shiicada Muqtada al-Sadri uu sidoo kale jeeshkiisa ama ciidamadiisa al-Mahdi ee la dagaalamay Mareykanka muddada dheer dalka Ciraaq in hadda ay ku beerayaan dagaalka oo sunniyiinta ay ka hortagayaan oo ugu baaqinayso soo baxaan. markaad fiiriso waxyaabaha oo dhan dhinaca kale Ciraaqiyiintu waxay ku eedeynayaan gaar ahaan shiicada dowladda shiicada ee maamushay Nuur al-Maliki Sacuudiga iyo Qatar iyo dalal ay ka mid yihiin oo sunniyiin inay la kuleeyihiin arrintan oo jabhadda ay taageeraan. marka waxaad dhan fiiriso ma laga yaabaa in dagaal gobolka oo dhan ka qarxa oo sunni iyo shiico u dhexeeya inuu isu bedelo? dagaalku si dadban hadduu u taagan yahay sidaan aaminsanahay oo dagaalka sunnada iyo shiicada u dhexeeya meelo fara badan ayuu gobolka ka jira. wuxuu ka socdaa dhinaca Suuriya si kastoo la doono loo dhigo markaasi ama fasirka lagu kala duwanaado. Lubnaan ayuu ka jiray hadda ka hor walow dhibaatadiisa xoogaa la yareeyo ayagu ay wada fariisteen. gobolka guud ahaan dhibaatadaasi way jirtaa hadda culimo fara badan xataa ayaa ka hadlayso dhahayo waxaa qarka loo saaran yahay dagaal aan waxba ka tegin inuu dhaco sunnada iyo shiicada. haddana arrinta mar haddii siyaasad ay tahay waxaa la dhihi karaa dhinaca kale isriix ayaa jira isagoo ruux walba adeegsanaya ideolojiyada markaas uu aaminsan yahay. marka labada qodob ee ugu muhiimsan marka dagaalka hadda sunnada iyo shiicada ee gobolka marka laga hadlay in la dul istaaga ay tahay waxay tahay kow qodobka koowaad oo ah in sunnada marka la yiraahdo ma matali karaan kooxahan mayalka adag al-qaacida. jawaabtu waxay tahay maya, sunnadu ma matali karaan dadkaas leano sunnada ma matalaan dadkii sunnada ahaa ee markaasi ama dhexdhexaadka ahaa ama meel walba ay joogaan caalamka islaamka way diidan yihiin fikirkaasi oo waxay leeyihiin inuu sunno matalo iska dhaaf islaamka xataa ma matalo. taasi marka waa qodob u baahan in hoosta laga xariiqo in badan daraasaad ay ku socoto. way iman kartaa su-aal kaloo la xiriirto ah sunnada yaa matala markaasi leano dowladaha hadda jira laftooda ma matali karaan ama fikir liberal ay haystaan ama waxyaabo ka duwan. marka taas waa su-aal kaloo iyadana farac kasii noqon karta. laakiin su-aasha ugu muhiimsan ama qodobka in la dul istaaga ay tahay waxaa kooxaha mayalka adag ee markaasi al-qaacida ama sheeganaya inay iyagu dowlad islaam wadaan ama calankaasi madoowato kooxaha sunnada ma matali karaan meel kastoo la joogo. kaliya waxaa ka dhaxeeyo sida aan ku dhahay ama horeba aan u xusay oo ah siyaasad marxaladda hadda la taagan yahay ah in la isku dangaaro si aad adiga u soo jeedisid cadawgaaga inaad tahay ruux wali taagan iyagana yihiin koox oo markaasi dagaal ku jiro in la iskaalmaysto ama la isku dangaaro ama carabtu waxay u yaqaanaan zawaaj mutca wax oo adigu guur maalmo ah oo kadibna dhamaanayo oo honeymoonkiisa aad u kooban yahay. waa gartay. ugu dambeyntii dhinaca kale shiicada qodobka labaad ee isagan in la dul istaago ay tahay laba qodob waatan sheegay. qodobka labaad oo shiicada ah shiicadu ilaa xad waxaa la dhihi kara fikir ahaan ayay u abaabulan yihiin iyagu laftooda kooxa kala gedisan ha ahaadaano. Iiraan ayay inta badan ay salka ku hayaan oo dowladda Iiraan oo la yiraahdo fikirka shiicada iyada matasho inta badan maalgeliso. maalinkiina waxay xoog u saaraysaa yani Ciraaq waxyaabaha hadda yani aadka loola yaabo waxaa kamid ahaa in
wadaadada ugu waaweyn markaasi sheeganaya marjiciyada shiicada inay yihiin inay si toos ah u dheheen waxaan difaacaynaa xadgudub lagu sameeyo muqadasaadka islaamka ee shiicada dad fara badan ay waxay yiraahdeen hadii muqadasaadka shiicada markaasi insaas inta loo ogeysiiyo dadko dhan la isugu soo ururin karo maxaa diidayo in xataa qudus dadka la isugu ururiyo la geeyo marka adigu su'aalo noocaas oo markaas critic ka dhalan kara ayaa meesha ka yimid isku soo wada duuba waxaa la dhihi karaa marka labadaas qodob hadii aan dul istaagno laba fikir oo meel adag ayaa jiro kan shiicada iyo kan sunnada laakiin waxa hubaal ah kan shiicada markaasi shiica iyo matala laakiin kan sunnada ma matali karo waa gartay ugu dambeyntii waad aragtaa reer galbeedka laftirkooda arrintan ku saabsan IS-ta aad bay wal lagu qabaan oo jabhadan Daesh aad bay uga wulsan yihiin dowladda Ingiriiska ka hadashay David Cameron ra'iisul wasaaraheeda rag Britishka dhalinyaro British oo Ingiriiska ka tagay ayaa lagu arkay iyagoo telefishinada islaamiyiinta ka soo muuqanaya muuqaalo video ay soo galiyeen telefishinada ka soo muuqanaya marka waxyaabaha markaad fiiriso Mareykanka qayladanta ka soo yeeraysa wad maqasha iyaga laftirkooda dalalka galbeedka ma moodaa in hadda ay ku baraarugeen awoodda kooxdan Daesh ay leedahay Syria iyo Iraq lama dhihi karo waxaan aaminsanahay awoodda kooxdaas ay leeyihiin hore way ugu baraarugsanaayeen wayna ogaayeen inay khatar ku yihiin mantiqada ama gobolka oo dhan laakiin reer galbeedka guud ahaan waxyaabaha iyagoo diidan fikirkaasi mayalka adag ee markaasi kooxaas ay wataan ama wixii la halmaalo iyagoo diidan haddana inta ugu badan iyaga siyaasadooda waxaa lagu dhisaa istaraatiijiyad gaar ah iyo pragmatiyad markaas ayagu ay xadidayaan oo markaasi meelna ay u baahan tahay in markaasi awooddaas yani dhibaatada kasoo socota laga hortago meelna ay tahay in si tartiib oo diblomatic ama siyaasadaysan loo qaabilo marka aan ka hadlayno Suuriya oo isla kooxdaas ay ka dagaalamayso way diideen way u arkeen inay tahay wax meel adag laakiin haddana mowqifkooda kuma kalifin ama ma dhihin inay toos u farageliyaan laano arrintu waa aad bay ay uga fog tahay in kooxda kaliya lagu xaliyo oo macnaha laga hortago laakiin se marka markaas u nimaano dhanka Iraq way ka duwan tahay oo waxa dhigi kartaa Iraq marka la joogo waa dal Mareykanku iyagu ay qabsadeen hadda kor ay ka tuureen nidaam ay ku sheegeen inuu yahay kala talis muddo dheer ay dimuqraadiyad noocay doontaba loo dhaleelay ay ka dhaliyeen dimuqraadiyadaas muddo shaqeynaysa Maliki ayaa markii dambe ay keentay ciidamadooda ay ka soo saareen marka mas'uuliyad ama responsibility oo waxay dareemayaan dalkaas kaga aadan inay jirto noocay doontaba ahaatee marka mid siyaasadeed inay ay gacanta ku hayaan iyo mid military oo hadii dhibaato meeshaas ay ka dhacdo ah inay ka baacayaan dhibaatada ama dulmi kasta ku dhici karo oo markaas dib Iraq dib u dhigi karo way ka soo horjeedaan waxa isla markaas walwal ku hayo nidaamka halkaas ka jiro oo gaarsiiyay dhibaatada in ay dad muwaadiniin caadi ah ay kaashadaan koox ilaa heerkaas la ogyahay inay meel adag tahay inay u baahan tahay in la dul istaago la darso aan lagu degdegin go'aanka marka waxaan dhihi karnaa reer galbeedka mowqifkoodii arrimo fara badan oo siyaasadaysan istaraatiijiyad ku dhisan ayuu isugu jiraa kaliya ma ahan fikirka markaas mayalka adag inay la dagaalamayaan sidaas ayaan rumaysnaa dhegaystayaal barnaamijkeenii martida microfonka oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xiisada xoogan ee ka taagan dalka Ciraaq iyo arrimaha la xiriira jabhadda IS oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa aadan Sheekh Xasan Azhari oo ka faalooda arrimaha carabta inta hayno joogo intaan barnaamij mid kale mid ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi isugu kaayo soo duway halkana ka soo jeedinayay halkaad kala socoteena waa VOA